qisadani waa qiso dhaba waxaanay ka dhacday mid ka mid ah wadamada khaliijka carabta waxaanan ka akhriyay mid ka mid ah website-yada laga leeyahay wadankaas. ninka qisadan soo warinaya ayaa waxa uu yiri waxaan ku sugnaa xeeliga badda waxaan arkay gabadh aad u weyn oo fadhida badda dhinaceeda. waqtiguna waxa uu ahaa waqti aad iyo aad u dambeeya oo waqti habeenimo ah. saacaduna waxay ahayd 12 habeenimo. waxaan u soo dhawaaday gabadhii aniga qoyskaygii. waxaan ka soo degay gaadhigii aan saarnaa waxaanan agimi agteedii. waxaan ku yiri hooyo yaad sugaysaa? waxay igu jawaabtay waxaan sugayaa wiilkaygii waxaana uu imanayaa in yar kadib. qoraaga ayaa waxa uu yiri waxaan ka shakiyay gabadhan arrinkeeda waxaana shaki weyn igu dhaliyay waqtigan aadka u dambeeyo iyo gabadhan aadka u daada weyn ee meeshan joogta. umana maleynay inuu qof u imanayaa jiro. wuxuu yiri waxaan sugayay saacad cid u timina may jirin. mar labaad ayaan u tagay waxay igu tiri imikuu tagay in yar kadibna wuu imanayaa. wuxuu yiri waan eegay waxaanan ku arkay dhinaceedii warqad taala. waxaan ku yiri hooyo warqadda ma akhriyi karaa? waxay igu tiri waraaqdan waxa meesha dhigay wiilkaygii. waxaana uu igu yiri qof kasta oo ku yimaado u dhiib waraaqdan. wuxuu yiri waan akhriyay waraaqdii. haddaba maxaa waraaqda ku qornaa? waxa ku qornaa qof kasta oo u yimaado gabadhan fadlan waxaan ka codsanayaa inuu geeyo meesha dadka waaweyn lagu xanaaneeyo.